kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada warka fiidnimo waa maalinimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 8 bisha 7 ee sanada 2024 qodobada aad ku maqli doontaan warkeena waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u safray wadanka Eritrea ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa saaka waabarigii cagaf waxa ay geliyeen xaruntii hore ee ciidanka dabdamiska Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo socdaal ku jooga wadanka Ciraaq ayaa la kulmay madaxweynaha dalkaasi hogaamiyaha maamulka SSC Khaatumo Cabdiqaadir Axmed Cali Firdhiye oo isaguna booqasho ku joogay wadanka jamhuuriyadda Djibouti ayaa la kulmay madaxweynaha dalkaasi intaas waa qodobada warkeena caawa ugu doorka roon haatan warkiyo faahfaahsan madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin wuxuu maanta ku gaaray wadanka Eritrea markii uu ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara waxa halkaas kaga horyimay kuna soo dhaweeyay madaxweynaha wadankaasi Eritrea Asiyaas Afwerki muddo 2 sano ah oo uu joogay fiila Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waa markii si lixaad ee uu booqdo wadanka Eritrea kulankan oo ahaa mid aan hore loo sii shaacin ayaa waxa lagu sheegay iskaashiga dhanka dhaqaalaha siyaasadda iyo military hase ahaatee siyaasiyiinta qaar ayaa waxay tilmaamayaan in xasaradaha ka taagan gobolka Geeska Afrika ay wadamada Soomaaliya iyo Eritrea iska kaashanayaan dhanka military iyadoo bilihii u dambeeyay aysan wanaagsanayn xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo wadanka Itoobiya hase ahaatee madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu kulamo saaxiibtinimo ku booqanayay muddo 2 sano ah uu xilka joogay wadamada dariska sida wadanka Kenya, Djibouti, Eritrea iyo sidoo kale wadamada bariga Afrika iyo gobolka oo dhan ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa saaka aroortii waxa ay ku waabareysteen xaruntii hore ee ciidamada dabdamiska Soomaaliyeed iyadoo dadkii deganaa ay hoyga u ahayd muddo ka badan 30 sanadood xaruntii dabdamiska ciidanka Soomaaliya ayaa maanta waxa burburiyay ciidamada booliiska Soomaaliya afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inay dhamaatay muddadii loo qabtay dadkii deganaa xaruntaasi isagoo sheegay in kal horaba ay jireen dad iyagu iskaga baxay amarkii dawladana fuliyay hase ahaatee dadkii saaka loogu yimi ay ahaayeen kuwo ka dhiga adeegay amarkii dowladda federaalka ee Soomaaliya ka soo baxay iyo taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed saakana ay sidaasi ku galiyeen gaadiidka loo yaqaan cagafta waa kan afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo arrimahaasi faahfaahinaya waxaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo ilaa 6 qodob oo ku saabsan arintaas ciidanka booliiska Soomaaliyeed saaka waxay dabdamiska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada Muqdisho u noqon doonta dabdamis la tacaala dhibaatooyinka dabka soo noqnoqday magaalada Muqdisho tan markii ay bilaawatay arinta dabdamiska tirkoob uu sameeyay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa gubatay ilaa 147 meelood oo meelo yaryar iyo meelo waaweyn isugu jira oo ay ku baabaaday hanti Soomaaliyeed oo ay bulshada Soomaaliyeed lahayd marka si taal loola tacaalo ciidanka booliiska Soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed oo aan mahad celin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed sida aad la socotaan booliisku wuxuu waqti dheer siiyay muwaadiniinta deganeed goobtaas waqtigaas oo maanta ku ekaa odayaashii dhaqanka iyo bulshadii nagala shaqaysay waqtiga maanta ku ek ee arinta dabdamiska noo mahad celina waa dadku dayasho mudan odayaashii dhaqanka iyo dhalinyaradii ka shaqaysay arinkan dadka intooda badan maadaama ay guureen intii hartayna maanta ciidanka booliiska Soomaaliyeed baawur iyo wax kasta ugu deeqay insha Allah
dhanka kale waxaa iyaguna halkaasi cabashooyin ka muujiyey shacabkii saaka laga saaray xaruntii ciidanka dabdamiska waa kuwan qaar ka mid ah shacabkii halkaasi deganaa hooyna ayuu ahayd muddooyin sannad ah oo codsi u diraya madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ku soo diranayaa cabasho mudana madaxweyne haddaad damiir iyo daroon leedahay hadday hooyo ku dhashay hadday gabari kuu dhaxday hadday gabari kula dhalatay mudana madaxweyne waa dhibanahay waxaan ku dhibanahay ma aqaan meelaan aado mudana madaxweyne anna inaan garabkaada istaago oo ilaahow guusha si aan iraado geesigaan dhala kuu soo diro adna aad gogoshaydii baraha ka dhigto ma garbaa taas mudana madaxweyne ma garbaa aniga saaka waa ciishoonahay waana dhibanahay haddaan ahay dumar hooyo weliba waxaa la iigu imaada buushkeygii waxaa la iigu imaada meeshaan jiifay aniga meeshaan jiifay mudana madaxweyne inaan kuu soo duceeyo ilaahay kuu baryo oon habeen walba caloosha dhulka kuugu hayo oon 20 jirkaan dhala kuu soo diro la yidhaahdo garabkiisa istaag maantana ay yidhaahdeen dad adiga kaa socda meeshii ka kac mudana madaxweyne may qabataa aniga hooyaan ahay may qabataa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa kulan muhiim ah la qaatay madaxweynaha dalka Ciraaq Mudane Cabdiladiif Jaamac Rashiid Ra'iisul Wasaaraha oo soo dhaweyn heer sare ah loogu sameeyay qasriga Baghdad ayaa gaarsiiyay madaxweynaha wadankaasi Ciraaq dhambaal iyo fariin uu uga siday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud isagoo la wadaagay horumarka ay ku tallaabsatay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha Ciraaq Cabdiladiif Rashiid oo soo dhaweeyay booqashada Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo lagu xoojinayo xiriirka labada dal laguna ballaarinayo iskaashiga iyo dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada iyo sidoo kale diblomaasiyadda iyo deeqaha waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed ay u aadaan jaamacadaha dalka Ciraaq Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa xaqiijiyay in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka labada dal dhinacyada kala duwan sida loo adkeeyo amniga nabadda iyo xasiloonida gobolka madaxweynaha maamulka SSC Khaatumo Master Cabdiqaadir Axmed Cali Firdhiye oo kulamo booqasho ku jooga wadanka Jamhuuriyadda Djibouti kadib markuu casuumaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle ayaa wuxuu kulamo kala duwan ka wada wadankaasi Djibouti isagoo la kulmay badiba madaxda wadankaasi Djibouti sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale safaaradaha u fadhiya wadanka Djibouti caalamka intiisa kale sidoo kale madaxweyne Firdhiye ayaa wuxuu kulamo la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi Djibouti iyo iyagu jaaliyadda ka soo jeeda deegaanada SSC Khaatumo walina halkaasi waxa uu ka wadaa kulamo kala duwan markii ugu horeysay ee madaxweyne ka socda maamulka SSC Khaatumo uu booqasho ku gaaro wadanka Jamhuuriyadda Djibouti halka uu ka helay casuumaad rasmi ah arrintan ayaa imaanaysa kadib markii isbuucyadii la soo dhaafay ay ku sugnaayeen wadankaasi Djibouti siyaasiyiin iyo odayaal ka soo jeeda maamulka Awdal State iyagoo maamulka Somaliland ay gacan ka taageen arrintaasi sida fiintana ay uga qayliyeen arrintan ayaa dab ku sii shidaysa booqashadan iyo casuumaadan madaxweyne Firdhiye ku tagay Djibouti watahay saaxiibayaal waxa intaasi nagaga eeg warkii fiidnimo waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Eeraan tan iyo intaan ku kulmi doono warka inoo xigi doona sida ay waxaan idinkaga tagnaa fiid wanaagsan saaxiibayaal